waa awood u yeelay hadda markuu hadli tago kale ma hadli kariyo dhihi jiray awood u maleeyeen in caadi u hadla ma si fiican u hadlo waa leela jalaanta islaamkan ku salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahay wilma iga maqan 2 sano muddo 2 sano iga maqan yihiin 2 sano waan aamusnay hadda live-kan bariga soo galay dadka islaamahan ka codsanaya in alla intii islaama waa maqalkayga muuqayga aragto ilmahayga sidii lagu heli karo ama layla hadal sii karo ama ay in nool yihiin dhintay ba xatirba ma kala garanayeen adiga si ilmaha kaaga maqan ilmahayga aabahooda ay ka watay waxay iga maqan yihiin 8 sano ay gabadhaydu jirtay marka laga wada wiilkana 6 sano jiray hadda 16 sano gabadhayda bilooba u raacay 2 sano maqal iyo muuqkooda aan laayahay ewel waaba xoogay marmar ama qal kula hadla jiray hadda muddo 2 sano ma arkin way iga maqan yihiin in dhintay nool yihiin ma aqaani meel ay ku sugayiin ma aqaan inta islaamha codsanaya oo la ilaaha illa allah muhammad rasuulullah inta taqaano dhama codsanaya kali dibad meeshii ka joogan afi adin waxay ku caawi karaan inay caawi aabahood kulay taasoo haysto Norway la deganaa ugu dambeysay aniga waa iko yar yar laga waday Norway soo wala deganaayba waa laga watay anoo si looga watay hadda ma faahfaahi karo ilaa lama jirin hadda waa laga watay waa ilmi waa la kala watay wiil iyo gabar aniga leeyahay gabartaydu waa 16 jir wiilkana 14 sano jira gabaraydu in dhimatay noo shay ma aqaan wiilkana sidoo kale asna mar dhaxdaana igu dambeysay asoo la haysto kulay toog oo dabaq iska soo tuuray mar waa igu dambeysay ka baacdi meel oo ku sugay ma aqaan markii mahada lagu aabad lagu wado magaalada joogaad ku goortanaysa Norway ni joogaa magaalada wallahi hadda ma sheegi karo ma kala garanay laakiin Norway kor laga dhahaa Norway igu war dambeysay 2 sano waa moogahay nolol giirmidna ma kuma hayo waa la kala waday Faransa ma la yiraahdo ugu war dambeysay gabadha aydo diyaarad lagu Toronto ay tahay markaasay laba meeshaas ay ugu war dambeysay kabacdi meel loo qaaday maaqan wiilkan aday meel jasiiradahan ku jira mari dhahay kiligii aan joogaha oo dhahay dad oo cadaadis isaareen oo gaala ah oo dhahay marka meeshaas ay ugu war dambeysay wiilka inta kula soo hadlay ma qalka jooga muddo hada wiilka sanad waa moogahay gabadhan 2 sano moogahay adiga 2 sano oo iska dhay waa 2 sano ma arkin ilmeygu ay ga maqan yihiin marka islaamka oo meeshaas jooga intan ha joogeen inay cod isku darsadaan wax ay qabtaan ka codsanaa insha Allah wiilka markuu kula hadlay qaabkiisa kula muuqdo qof haysto maxbuus kula muuqdo maxbuus oo ila muuqdo hadda una maxbuus ahayn waa inuu ila soo hadlo oo macnaha awood u yeelan lahayd ma ama uu telefoon hela ama wuxuu qaba ii sheego waa awood u yeelan lahayd hadda markuu hadli tago kale ma hadli kariyo dhihi jiray awood u maleeyeen in caadi u hadla ma si fiican u hadlo waa leela jira ama waa lay duubaa u dhihi jiray kabacdi aaladii waa laga qaatay hadda mid ay ahayd ba waa laga qaatay hadda ma soo hadaliyo muuqayso maqalkiisa lama arko gabartii kadaalika waa ka daran tahay meel ay ku sugan tahay ma garanay Soomaaliyeed ee Kanada joogan xad ugu baaqay waxaan ugu baaqayaa Norway inta joogta waxaan ugu baaqayaa inay ilmaha sawiradooda hadda waa helayaa inkastoo sawir qurxan hadda fiican ka haynin wiilka waa hayaa laakiin gabarta sawiradeeda waa telefoonkii waa igala halaabay hadda telefoon ma haysto hal xabaan ka hayaa oo telefoonka walaalkay ku jiro kaasna waa tusaya sawiradooda aan soo gudbina marka waxaan ka codsanaa inta islaama in waxay qabtaan اللي راديوها أما أيك نفتركوا إن يفيرسدان laga yaabaa hadii ay aaladaha ay ka fiirsadaan laga yaabaa hadii nool yihiin ama ay dhimarka qabaan ayaguna hadii maqlaan inay soo wacaan ilmaha aabud si wax dacwada ma fiyo ma raadi hay markii hore oo meesha joogay waa dacwooday haddana
ayadoo hadda waqti la gaarin ama waxba la isku qaban ka soo tagay muqdisho jooga ilaa hadda markii hadda ka dhaxayso muqdisho jooga ilmaha haday ka maqayna raadso anu hadayna war kale ceeban ka sheega ma rabiyo waxa uu dhahayaan dhameystiro ma rabo laakiin ilmaha haday ka maqayeen raadso way ugu soo koobay meel aan hadda ka raadiyo ama safaarad aan tagon ka dacwoodo iyo hantiyan ku tagan toor ma haysteen safaaradda Soomaaliya dalka Norway ku tahay waxaad baaq u diraysaa safaaradda horta waxaan jeclaalahay marka hore in aanu tago aan jeclaalahay haddii ay suurto wali wayso oonan tegina waxaan jeclaalahay safaaraddaas in ilmahayga i raadiyaan ay i dacwoodaan aan jeclaalahay si ilmahayga dib ugu